dubka ama bearka waa xayawaan kalaas ahaan naasley ah sidoo kalena ka tirsan qoyska Arsidae waxaana sida guud loo qeybiyaa ilaa 8 nooc oo kala ah American Black Bear, Asiatic Black Bear, Brown Bear, Chianti Panda, Polar Bear, Spectacular Bear, Sloth Bear iyo Sand Bear. waa 8 nooc oo kala duwan caalamkana ku kala nool isla markaana ah qaybaha guud ee loo qeybiyo xayawaanka dubka ama bearka. qaarad ahaan dubka wuxuu ku nool yahay alaabana laga helaa waqooyiga Ameerika, koonfurta Ameerika, Aasiya iyo Yurub. lagama helo Afrika, Antarctica iyo xitaa Australia. badanaana dadku waxay moodaan dub ama bear xayawaan ku nool Australia oo lagu magacaabo koala, laakiin dub ma ahan ee waa mid ka tirsan bahda magacahan la isku yiraahdo Marsupialia oo kangarooguna ka tirsan yahay. noocyada kala duwan ee uu dubku ka kooban yahay waxaa carnivore ama hilib cuna sax ah nooca ku badan qudbiga waqooyi ee lagu magacaabo polar. waa nooca kaliya ee sida tooska ah ugu tiirsan hilibka waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu xajmiga weyn hilib cunayaasha beriga ku nool oo mid kala culeyskiisu wuxuu gaari karaa 400 ilaa 600 kilogram halka midda dhadigna tahay kala bar marka la eego culeyska mid kala. polarka sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu ka mid yahay xayawaanada bad ku noolayaasha ah maadaama uu aad wax uga ugaarsado badweynta engegan ee barafkuna ku daboolan yahay. sidoo kalena wuxuu waqtigiisa ugu badan ku bixiyaa dhanka badda. qiyaas la sameeyay ayaana sheegaysa in tiradoodu gaarayso 20,000 wuxuuna leeyahay nooca polarka la yiraahdo 42 ilig. noocyada kale ee soo haray oo dhanna waa kuwa omnivore ah ama dhir iyo hilib cunayaal ah, yacni dhirtuna waa ay cunaan sidoo kalena hilibka waa ay cunaan oo midna toos uguma tiirsanaa, laakiin waxay intooda badan aad u xiiseeyaan miraha faakahada. sidoo kale intooda badan waa kuwa aad u cuna kalluunka ama malayga sida nooc hoosaadka lagu magacaabo Kamchatka Brown kaasoo awooda inuu maalintii cuno 40 kilogram oo kalluun ah. nooca polarka la yiraahdo wuxuu barafka ku dahaaran badda uga faa'iideystaa ugaarsigiisa gaar ahaan kolka uu kalluunka ugaarsanayo, laakiin wuxuu si weyn u jecel yahay xayawaanka la yiraahdo seal kaasoo ah semi aquatic ama mid ku noolaan kara biyaha iyo berigaba. waxaa jira nooc ka mid ah 8 nooc ee dubka oo lagu magacaabo panda ama Chianti Panda oo aad u cuna geedka la yiraahdo bamboo. markii ugu horeysay ee la ogaaday noocan waxay ahayd 1869 waxaana laga helay dalka Shiinaha. mar dambe ayaana loo aqoonsaday inuu yahay nooc ka mid ah dubka gaar ahaan sanadkii 1970. magaciisa cilmiga ahna waa Ailura Boda melanolica oo loola jeedo bisada cad isla markaana madow, waxaana laga helaa koonfurta iyo bartamaha dalka Shiinaha. waa mid ay dawladda Shiinaha aad u ilaaliso oo ku dhow inuu dabar go'o, waana nooca kaliya ee leh suul dheeriya oo uu ku qabsado geedka uu 99% jecel yahay ee bamboo, wuxuuna awoodaa inuu maalintii cuno 20 kilogram oo geedkan ah. xayawaanka dubka wuxuu leeyahay 2 lakab oo dhogor ah. dhogortiisa hoose waa mid uu ilaalisa diiranaanta halka dhogortiisa sarena ee uu ilaaliso biyaha si uu isugu qaboojiyo. celcelis ahaan cimrigooda ugu dheer wuxuu gaaraa 30 sano, waa haddii aysan helin xanaaneyn gaar ah. kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneeyo xayawaanadana wuxuu cimrigoodu gaari karaa 47 sano, laakiin sida baandaha oo kale cimrigoodu wuxuu u dhaxeeyaa 18 ilaa 20 sano. nooca ku nool waqooyiga Ameerika isla markaana xajmigiisu dhexdhexaadka yahay loona yaqaano American Black Bear ma ahan kuwa mar walba uu midabkoodu madow yahay. muddo kadib wuxuu kalarkoodu isku bedelaa brown ama midabka buniga waxaana loo yaqaanaa markaasi cinnamon, laakiin mararka qaar xitaa midabkoodu wuxuu isku bedeli karaa cadaan ama buni iftiimaya. xayawaanka dubka ama bearka waa mid ay awoodda urintiisu aad u sareyso, wuxuuna ka urin fiican yahay bini'aadamka 100 jeer. nooca la yiraahdo polarka ee hilib cunaha ah wuxuu awoodaa inuu wax ka uriyo badan 32 kilomitir ama 20 mayl. xayawaankan waa mid ay sidoo kale xusuustiisu aad u sareyso sida ay qeexayaan tijaabooyin kala duwan oo lagu sameeyay. waxaa jira noocyo aad loo ugaarsado hilibkoodana la cuno, sidoo kale dad ayaa u ugaarsadaa in ay dhogortooda helaan oo kaliya.
2010kii wiil uu dhalay Zia Mamadov oo markaas ahaa wasiirka gaadiidka Azerbaijan ayaa tagay maqaayad wuxuuna maqaayadda ku arkay dub ku xiran oo dadka inay daawadaan oo kaliya loogu talagalay laakiin wiilka wasiirka wuxuu dalbaday in loo shiilo hilibka dubkaas taasina waa ay ku adkaatay maqaayadda waxayna ku xujeysay in uu bixiyo $1 milyan si loogu shiilo hilibka dubka balse waa uu ogolaaday wuxuuna bixiyay $1 milyan ee laga doonayay sidoo kale xayawaankan waxaa aad u jecel Khabiib ama Xabiib maadaama uu qayb ka yahay safarkiisii dheeraa ee heerka maanta uu joogo uu ku soo gaaray wuxuuna marka uu yaraa la tababaran jiray dubka ama beerka si uu aabihiisa rugcadaaga ah ugu muujiyo awoodiisa dagaal